أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الفعل والقول والهدى والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم استخدمنا لدينك ولا تبدلنا واجعلنا للمتقين إماما. قال المصنف رحمه الله تعالى وجميع مشايخنا رحمهم الله تعالى: واليوم maantay وبعد مئات السنين بقلال سنة كدب يعود الخوارج way soo laabanayaan في القرن الثاني عشر الهجري. qarniga 12aad ee hijrada dhexdeeda ayay ku soo laabanayaan bixamlatin weerar ayay la soo laabanayaan xamlado jadiidatin cusub cala islaami islaamka dushiisa la weeraray ayay la soo laabanayaan weerar cusub oo islaamka dushiisa la weeraro ayay la soo laabanayaan qarniga 12aad. waayahay waa qarni aan fogeyn oo hadda 200 iyo wax yar laga joogo. waa xilligii maxamed bin cabdulwahaab awoodiisu caalamka aad uga soo muuqatay islaamka jasiirada carab gaar ahaan. ما زلنا أنغو aanan ka zuulin nucaani minha ayada xaggeeda inaan ku dhibtoonayno xataa اليوم. weerarkii ay ku soo qaadeen xilliga islaamka ilaa haddeertan islaamku waa ula dhubtinayaa. maxaa yeelay wax islaamaho ayaga dibkooda muuqaal leh ama is haysta lamaba helin. deegaan walbo islaamku ay ku noolaayeen afkaarta dad qaatay iyo khasab dad lagu geliyay yaa ka soo baxay. islaam marka awood u leh tacliimta islaamka iyo quruxda islaamka heebadiisa inuu ilaaliyo waa la waayay oo waa uu burburay oo qolo walba ayada ayaa gudaheeda waxa ka taagan shil iyo dhibaato aan dhamaad lahayn oo aan banaanka looga bixi karin. guri walba ay fidnaas idlaysay oo aabba iyo wiilkii hooyo iyo gabadheeda waayahay walaal iyo walaalkii nin iyo naagtiisa ayay kala dishay oo ay kala geysay. waxaba yaraatee shu'uun caama in laga fikiro ama madaxa kor loogu qaado ay suuragal ka dhigi karta marna lama hayo. ilaa haddeertan ayaan la dhubtinaynaa ayuu leeyahay weerarkii xilliga ay soo qaadeen. bal inna khadaraha bal wuxuu leeyahay wahaabiye halisteedu akhidun waxa uu gudagalay bitazayudi kordhid. halistoodu waxaabad moodaa mar ka dambaysa inay kasii badan tahay intii hore oo la yaqaanay. falaysa bibaciidin wax fog oo baciida maahan oo caqligu uusan qaada karin. إذا قلنا هداني رهنو إنها حملة من أخضر الحملات والرذا كو أبوها لست بدن له أي كم تهداني رهنو كما بدين أحلى لا يابنا معها التي حملات داسو استهدفت باكستي الإسلام إسلام كباكستي وعقيدة المسلمين أي مسلمين تعقيدة والرذي تارجت كودوها إسلام كأي عقيدة ديسا هو أبوها ليس بدن أي كمتها حمل الوهابية هداني رهنا وح بعيدة معنا وح صح أو دو. فمنذ نحو 250 لا بقول يكنتم قدر كذا وقت اللي جوجو سنة أو من سنتنا قام الإنجليز وح استاجي إنجليزك بزرع فتنة بيرست هذا يستاجي في قلب العالم عالم كودنه سلبوا بيرو عالم كسوء الإسلامية عالم كإسلام كا wadnihiisa in fidna lagu beero. haddii nimanka muslimiinta leeyahay ragga ugu khatarta badan la mar walbana waa ingiriiskaas oo ayaga ugu cadcad ugu khatar badan. muslimiinta waxa la yiraahdaa waa qowmun min al-magharib qowm dad reer galbeedkaas oo huyu li ta'allumi diyaanati sharqi wa aadaatihim wa lugatihim loo diyaariyay inay bartaan dhaqamada caadooyinka diimaha luqadaha rabariga. markaasi jaamacadkii islaamka xitaa ay galeen culumta islaamka iyagoo kafaraha gaala laakiin isu muujinaya inay muslimiin yihiin ay soo galeen dhulalka islaamka. waxay ogaadeen axwaasha islaamka ay daraasad buuxda ku sameeyeen luqadahooda ay barteen dhaqamadooda ay barteen diinkooda ay ogaadeen diinkooda meelaha aanay uga dhaqmin ama uga durugsan yihiin ay heleen ama ay ogaadeen. waxa ay sameeyeen ihsaa'iyaad iyo tirakoob ay ku sameeyeen dhaqamo fara badan oo jira. markaas dib ugu laabteen wasaaradkii soo diyaariyay hawsha noocaas oo soo diray. takhdiid marka iyo karta la jaxjaxay ayaa waxa lagu guuleystay in ugu dambeyn islaamka halbowlaha halista ah in laga asiibo ama laga qabto.
qolyaha ingiriiska la yiraahdo ayaana ugu cadada hawsha ragga qabtay ingiriisku wuxuu u istaagay fidna inay ku beeraan caalamka islaamka meesha wadnaha ugu qiimaysan caalamka islaamka wadnihiisu waa ardul wahyi waa ardu maratay habiibillahi sallallahu wasallam alayhi al-makka wal madiina xarameynka dhulka loo yaqaano wadnaha islaamku waa halka dhulkaas marka waxa asiibaha dhaqan xumo ama wanaag ah waxay u gudbinayaan halbowlayaal kale to oogada jirka waraabiya oo muslimiinta intooda kale to jirkaas oo kale u dhigmaan waxa waraabinayana wadnaha xididada dhiigga ka soo qaada halbowlayaalka hadii wadnihii marka uu bukoodo xibnihii kale tana waxa uu ku waraabinayaa dhiig aan caafimaad qabin waxana soo baxaya dhammaan xibnuhu inay bukadaan ama jiroodaan sida muuqataba كو حيث التقد رغبة المستشرق في وجه نيل من الإسلام مع ميول رجل وهو يستاغي بزرع فتنة في قلب العالم الإسلامي حيث مال أيو يستاغي التقت رغبة مستعمر كربيدي سؤال لك لنتي في النيل جاردة دحديسة وجعلها جاردة دحدة وجعلها من الإسلام كحق سلا جارو مع ميول رجل روح إلى شدي سلا جير كذا وصاحبي هوى نفجعيل قف كذا وحب زعامة يا مدحتنا مجعيل والله وراء عنده اكتساء لو رد أي سنهان ولا دين اكتساء سنهان ولا يعرف أن قرنين إلا هواه نفجعيل كساء مويه جرأته وحي كل رجل شيء رغبة في مجاوزة الحق حق إلا تلابه ولا يقدبه تعدت هي رغبة وحا أي تلابتي التداول إسدارين على علماء المسلمين مسلمين علماء كركودا الإسكداريو والإسكالا سريو والأئمة وعلى الأئمة إمام يالكي كركودا الإسكداريو الأربعة لتصل سي أوغارتو رغبة إلى حد تنقيسها وصدقيت سولين تيدا انتكاء لسيدنا سيد كان هوصل محمد صلى الله وسلم عليه وإنجليزكو بعد جواب كيف راه بدنا وإسلام الله إله إسلامك أودي سحقيك كلا فرتا الخلافة الإسلامية العثمانية حلي جايين هيد ولي إسلامك مقال يا جريتان أدو حوجان أي لهايين وهذا إسلامك دولك سمد وها تليه سمد وها تلمان تمال لجا وذا قادنا هي وحلا وحي مصالح حرام كلا إعلامنا هي إسلامك وذا قادنا هيين وحبيراتي كلا غيبين يا كلا جرجر أيسن جيرين هل هو جان إسلامك إلى هايين ولي وحبا باقي يعني كسر دجال فر بدن صاحات يدل بحد وين وغفراء يوروب دمانتد wuxuu leeyahay meel badan oo kamid ah dagaal uga furaa meel kale dagaal uga furaa waxa uu markaa baadi goobka faraha badan leh mustashriqa ingiriiska mustacmirka ingiriiska ninka adoonsadaha oo umada maartay in badan oo kamid ah dhalalkooda ugu duulo qabsaday baadi goobkiisii waxa uu ku helay maxamed ibn abdul wahhab oo taariikhda islaamku معروف كو سو غدبينيسو بل تاريخ الاسلام كمان حتى تاريخ reer galbeedku soo gudbinayaan sida gacanta loogu dhigay iyo ciidaha shaninka la jiray generaal maartay wasaaradda mukhaabaraadka ingiriiska ka socday oo nin heer sare ah ayaa suuragal ka dhigay in ninka gacanta lagu dhigo taxdiid iyo kaartada iyo dhaqaalaha mar walbana waxa uu fududeeyay wasaaradda arrimaha dibadeedka oo ingiriisku iska leeyahay nin la yiraahdo Jayfar Masar Hanfari oo qayb yar hadda kitaabka uu soo qaadi doono laakiin taariikh gaar ay ka qoran tahay sida uu guuleystay shaxda uu maartay u maray ugu dambeyn heerarka isla mareen waxa uu suura galiyay asagu waxa uu ahaa dad fara badan oo gaalaha islaam aan ahayn oo magac islaam loo yeelay oo uu aqbalay inay kala qayb qaataan wax badan oo uu sameeynayo gabadhii muslimaadka ahna lagu saladay oo muhaajiriin inta la yiri marka iska fulfulayeen si ay marka bulshadaas inay ula xididaan ahwaashada wax hoose uga sii ogaadaan suuragal ay u noqoto in badan oo kamidana ugu dambeyn ay ku guuleysteen xaramka inay imaamka ahaayeen ayagoo gaala waqti dheer qayb badan oo kamidana dagaalkii wahabiye ay ku qabstay xaramka ay ku dhinteen ku baqtiyeen wax muqarrar ah oo aan marnaba la dafiri karin xitaa nimanka wahabiyada la yiraahdo ayaga laftooda buugtooda ay ku qoreen ama ay ku soo qaadahayaan رجع وليبا وعد هذا تاريخ كهذا تاريخ رجع كهذا سيد عنوان المجدي في تاريخ النجدي يبوك تلاميذ كاي كسر قاضي هيان دجال كائنه كلا غيب قاتين إنجليز كسي مقلة دعايات فربضان أو أيها بومبوني فربضان وكسمية خلق جلين ومدة كلا وكسمية اغتيالات فربضان وعلماء اللي جا جوكت وأبابولي إنجليز وكسمية إلى ضدك إنه ضدان أوبا بعدي كرين دجالية برعيدا ساند ملتري
arrimaha oo dhan inuu la garab joogay rag khubaraa oo aad dagaalada meelaha saxaraha iyo wixii lamid ah aad khubara ugu ah mar walba in loo soo diyaariyo oo la soo siiyo dadkaasina hawlo fara badan ay qabtaan ilaa ugu dambeyn dawladda islaamka oo ku maqan dagaalka Yurub oo gaaladaas banaanka taagan isu mar walba dagaal habeen iyo maalin uu ka dhex taagan yahay ayaa gudaha dawladda islaamka waxa laga abaabulay qolyahan oo qaabka loo abaabulay ilaa ugu dambeyn suuragal ay u noqotay biqudratillaahi ta'ala in ay qalbul caalam islaami inay gacanta ku dhigaan waxa ay sameeyaan ayaga laftoodu ay ku faanhayaan in ay aasaartii islaamka oo qadiimka ahayd oo salafan an khalafin la iska dhaxlay inay tirtireen oo baabiyeen inay sameeyaan dadkii sharafta lahaa oo ku sharaf lahaa nabi maxamed inay ku abtirsanayeen calayhi salaatu wasalaam dhibaato iyo dhac inay u geysteen in ay dadkii dhulka ku noolaan ku khasbeen intay cunaan qabateeyeen baqtiga iyo eeyaha inay cunaan oo nafta ay ku badbaadiyeen arrimahaas oo dhan oo ay ku faanahayaan dhulalka islaamka ay ku duuleen oo ay ku magacaabahayaan ghazawaat ciidamadoodii ay ku magacaabeen muwaxidiin inta kalena mushrikiin laba qayb ay u qaybiyeen qayb ay yiraahdeen waa muhaajiriin qaybna waa ansaar ayagoo aad muddo asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam alqaabtii gaarka oo ahayd inay isticmaalahayaan maxamed ibn abdulhaabna inuu rasuul yahay dhadhankeedu uu aad u muuqdo dhulalka islaamka intay ku duulaan bililaqab xad weyn ka geysteen ayaa ku faanahaya oo masaajidii intay galeen muslimiinta masaaxiif iyo maaragtay gogol qaali ah ayaan ka soo duubanay ayaa ku faanahaya oo ku qoray buugtooda shaanigoodu sidaas ayuu ahaa ugu dambeynna waa la waayay wax islaam ah oo muuqaal leh nimanka markii ay abaabulmeen ama ay samaysmeen islaam muuqaal leh oo waayaha baydadii islaamka difaaca oo xurumaadkii shariicada kor u qaada qofna qolana fursad uma helin oo hadda qolo walba gurigeeda iyo godkeeda waxa uu galay xarakadaas aad iyo aad taariikhda islaamka mugdi xoog leh ku soo biirisay غريب سماهن oo la yaab ma ahan runtii xarakadaas inay noqoto munadaba camiila ah daba dhilif u ah diinta islaamka dadka colka ku ah markii insha Allah ta'ala aan aragno fadaa'ixda sheekhu uu soo gudbi doono iyo marka aan barbar dhigno mabaadiida dhigeeda yahuud nimanka la yiraahdo islaamka qolada ugu colaad iyo naciibka badan leh buugtoodii ay ku ciyaareen oo kitaab Ilaahay ay ka dhigayaan waxa ay ku qoreen markii aan isbarbar dhigno waxaan si dhow u dareemaynaa xarakadaas inay tahay xaraka wakiilka ah nimanka diin laawayaalka ah gaalada wakiil uga ah diinta islaamka sumcadeeda iyo muuqaalkeeda inay la diriraan waxaana inta ka basi culusba dhacdooyinka ay ku kacayaan oo anagu aan ognahay ama aan maqlayno dhacdooyinkaas ayaana marxaati u ah qof muslim ah oo Ilaahay iyo rasuul yaqaana oo ixtiraam diinta islaamka agtiisa ay ku leedahay wixii la dhihi jiray al-kulliyatul khamsa oo sharaa'icda samaawiyada isku waafaqeen in la waardiyeeyo dhammaan inaan loo aabayeelin oo dhiigii aan la badbaadinay afdalul biqaa'i al-ardawiyya dhulalka goobaha ku yaala sida nabigu uu tilmaamay waxa ugu fadli badan masaajidii laga ogaarsado qofkii asagoo raakica la birayo asagoo saajida la birayo asagoo midalan muraabid ah bacda al-ibaada fadhiyo oo wardigiisa ku jira la birayo albaabka in lagu dhawro oo markaa albaabka lagu birayo xoolihi islaamka in la dhaco بسم الله غنائم lagu magacaabo waa ganiimo cid la cid inaga horjeeda xoolaheeda waa xoolo in la dhaca sax ay tahay waa dhaqan jira oo aad loo yaqaano maxaarimtii abdaacdiina la badbaadin ee gabdhihii la yiraahdo waa gabdho oo mujaahidiinta kaalmeynaya ama caawinaya oo nin waliba xaddi waxa aan lahayn uu iska abaahiyo ama fuulo si martarti qoraho geel gola ku jira isaga dhex jira waa dhaqan wax macruuf oo aad loo yaqaano laga warqabo wax la daayay sharciga islaamka muru'adii dadka iyo cirdigoodii aan la badbaadino mar walba maqlaysaan waa murtad qofkii anaga sida aan rabno aan ahay waa murtad waa gaal ayagii laftooda gudahooda sida horeba taariikhdu ay u cadeynayso ayagii laftooda inay isgaaleysiyaan oo hadda qoladii marka ay istiraahdo kama alfa kartaan ama culays idin ku yihiin sida ummadihii hore ay laqabka noocaas ugu isticmaali jireen inay ugu isticmaalaan wahaluma jarra falhamada lama qiyaasi karo wax badbaadiyo haba yaraatee ma ay jiraan arrimaha noocaas dad qaba markii deegaamada islaamka ay ku soo biireen ama ka muuqdeen islaam masalix caama ka fakari kara horumarkii islaamka samay kara gaala inuu ku duulo ama haybadii islaamka uu soo celiyo keeni kara lama hayo mana la helin hadda kadib Ilaahay fadligiisa hadii lagu helo waa ungaar 250 sano waqti laga joogo ingiriisku wuxuu u istaagay bizarci fitna la beerideeda fi qalbi العالم الاسلامي lagu beero islaamka caalamka islaamka wadnihiisa dhexdeeda lagu beero haythu meel ayuu u istaagay iltaqat ay kulantay raqabatu al-musta'miri al-baridani
mustacmirka adoonsadaha ingiriiska rabidiisu ay la kulantay fi nayli gaarida dhexdeeda uu rabo min al-islaam islaamka inuu halbowle iyo meel halisa ka qabto rabida uu rabo waxay la kulantay maca muyuli rajulin nin ila shadiisa la jirkeeda oo saaxibi hawa nafjacayl u saaxiiba rabitaan nafeed diinka dhigto iska daba jooga faraayta man ittakhadha ilaahu hawaahu ilaahi wa tuulaha ruuxu hadii rabitaankiisa uu noqdo qof iska daba jooga hada rabbi waxa uu noqonayaa rabitaankiisa wax kale uu yaqaan lama arko waana wahabiye waxa lagu yaqaano وحب زعامة يهجان جعيل روح حليه الصاحب هو لقوا يقانه هجان إنه ملح نقضون تلئون توجب تلئون ضد بدنا درين كانوا عاص وسججراه ضد كاسنا أنت بدن وضد كمان لها كسر جست يقول تلئون توجب شان يجي روح ويهيون والله وراء عنده اكتساب سدورد يا حلال ميرد دور سنان أي سنهين ولا دين عنده اكتساب واحد دين أي سنهين ولا يعرف عن قرنين إلا هواه وحربتان كسامية وحكى ليس أموغا جرأته ويا هوداسي وحي كل رجل شيء في مجاوزة الحق حق لا تلابيد سدح هذا تعدد هوداسي وحي تلابطي التداول إصدارين على علماء المسلمين لا يسكن دارين علماء الإسلام كم هذا كي هذا نبي أنت بدن ويلحون هذا تنجر هاي طريقة هاي ذكر الجري وأنت مرتي تليسس العبسي ميربال أو رجع علماء هاي دين الإسلام كفع سعودي جري درب ديبة فودة أنت قليوه أنك نجي يغيل دان الهرتجو وأدقن يضبع حركات لجوب يغانو ضبيعي وحي هو ذا سيكون بارتي ضدك العلم جهبيد الإسلام كأها إنه اسكب بعض هذه وسلسل ويرا أنا بكفي عنه حين يجيه والله إمتي يا إمام يالكي إنه اسكد رايو أي ماذا سؤال أربعتي هو جميع يالكي إسلام كودين الإسلام كسوسة وتبحيه بالتحقيق كو ويضافتي مركان waxa la yiraahdo hawadiisu way talaabtay xaqii way talaabtay waxayna u gudubtay isku dheeraynta culimada iyo aymatul huda la dhihi jiro arbacada ahayd ila xaddi tanqiis ay u talaabtay nusqaamin soodinteeda intii ka ali sayyidina la nusqaamiyo muhammadin sallallahu alayhi wasallam alayhi wana dabaqado mar walba diinta islaamka maxaarimteeda qayb waxa ka culimada xamalada diinka hadii qofku ay dhacdo inuu san u abayeelin culimadu waa kuwa yiraahdo luhumul ulama ee masmuuma culimada hilbahoodu waa ay sumaysan yihiin oo qofka cuna kuma badbaado cawaaqibkiisa aad khatar u gala waxa uu gudbahayaa dadkii dhaxalkooda waa yahay iska laha oo ayagu ay dhaxleen qofkaasi waa uu gudbahayaa ilaa ugu dambeyn nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ay dhacdo in maarata falxumadii qofku uu la beegsado uusan ka istaagin waa uquba dadka culimada xad gudubkooda waa nataa'ijka ay dhalinayso حيث لأنه محمد بن عبد الوهاب كان وحوها يرى إنه رأيينها عصاه وشيسا التي عصداس وكان وها يتكئ عليها إنه كركذا كنت كبع عسكذا بكورد أوته تنفع إني واحتريس أكثر وحبذا بدن من محمد من نفع محمد صلى الله وسلم عليه مرة بدن أي دعي سينو إلى أشهد أن محمد كان عف بدن هذا أشهد هنقر لها يبقى لنا بس جد له حنا محمد وقلا وأنا واحد دين الإسلام كالله قبحة بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام نافع بها قبل الحياة وبعد الممات دلائل نصوص العلوس أي كسر أردت مدن محمدية إنه أنفعيه حتى في عرصات القيامة حتى في دخول الجنة أحاديث فربنا يكسرنا تنبي إنه واحتر وين ومدن أولي هدا أنت ومغيهي يا مركي قيامة لجارو يا جنة مركي لجلبة إنه مدن نعف كذا مرول باب أتاجين ونافع وياه وحبيرات الضوء سكتاجني هذا الكائن مركا جناب كنبي جرأة وحي لجارتين والنبي عليه الصلاة والسلام dhinaciisa inuu ka yiraahdo hadalka mararka qaar uu ku hadlo yiraahdo sheeyada ka fiicnaan badan maxamed waa dhintay qof inta waxa ma galo u sheeyo laakiin waxa ay taraysa وهكذا أفرز الاستعمار سيدان أيو أصو صوعي استعماركو محمد ابن عبد الوهاب الذي أشرف محمد ابن عبد الوهاب كايا ولايهي كشرفوا بي على تهيئته لو ديارنتيسا للقب لو دياري ومقع جديد عصب الجاسوس جاسوسي وكشرفوا بي البريطاني إنجليز كلو نسبة جيفري هنفري مثلا جيفري هنفري إنك جيفري هنفري ليرهدو جاسوس كاسي وكشرفوا بي مضنان إيوه قدرين إيو قيمين قار قالوا يصدرتوا قالوا وقاموا تيستي الذي وحولي هكذا سيدان أي أفرز الاستعمار وحوصوا محمد بن عبد الوهاب الذي محمد كاسو أشرفه وكقيموا بي على تهيئته ديارنتيسا للقب جديد لقب عصب لو دياريو
الجاسوس البريطاني وكشرف بجيفر هنفري فخلع على محمد بن عبد الوهاب waxa uu ku biladeeyo bil sharaf uga dhigo wuxuu u galiyay laqab al-imam mar walba propagandada lagu yaqaan reer galbeedka oo qofka ay rabaan inay qiimeeyaan in ay waxa la yiraahdo idaacadaha ugu sameeyaan buunbuunin fara badan hadda waxaan maqlay wahabiyo lagu amaanayo inay yihiin sunniyiin ama lagu amaanayo inay yihiin asal raac asalkii diinta islaamka dadka raacsan inay yihiin waa fikradaha reer galbeedka idaacadahoodana ka baxa danta lagu talagalay waxay tahay in qiimeyn iyo mudnaan gaar ah bulshada dhexdeeda in lagu yeelo maadaama hadda lagu amaanay ama lagu tilmaamay inay yihiin diinta islaamka asalka ay dadka ku faraadeen inay yihiin ummadda inteeda kalena ay yihiin dad diinta islaamka asalkeedii ka fogaaday ama ka bayray waa laga yaabaa dadka caamada qaarkood inay isla yihiin magacyadaasi waa magacyo maaragtay nimankaas lagu la dagaalamayo ma ahan waa magacyo qadiiman dhaqankii ay wahabiya gaaladii soo saartay ay kula dhaqmi jireen waa magacyo ka tarjumahayo asal raaciya sunniyiin iyo nimanka mayalka adag oo kale to iyo kulli waa dhaqamadii islaamku runimo uu iska lahaa oo ayaga loogu lambarinayo waa nidaam ay weligood sameeyaan jayfar hanfari markii maxamed ibn abdullah muxuu ku magacaabay mar imaam ku magacaabay ko marna wuxuu ku magacaabay mujaddid diinta islaamka ninkii cusboonaysiiyay oo nooleeyay waxa ay ku heshiiyeen ama uu mariyeen insha Allah taariikhda oo arki doona hadii la yiraahdo laqab jadid loo cusboonaysiiyay oo ku sharafay al-jasus al-baridani jayfar hanfari فخلع على محمد بن عبد الوهاب وحو يقول لبسه كهويه لقب الإمام لقب كإمامه والمجدد والمصلح وغير ذلك ما يكل الدول المصلح المظلوم المجدد العالمي الإمام الإسلامي مقعي عجب بدن وقفك عامه وخبرداره أن لا يكرين قفك لغو شيغو دنت لغا ليه هنا وبتاون فالحمد يسين لغو أسترددكنا مقعاسي لقب كا قرحون هذا بواد أنا مكا حركاتك اللي يداه مر والبا وحا دعيسه in fashal ku yimaado dhaqankooda dadku ay qoonsadaan taasna ay sababto inay magac cusub ama qayb cusub inta dilaaciyaan magac cusub inay u bixiyaan magac qurxoona al-i'tisam bil kitab was sunnah as-salafiyya hay al-athariyya inta soo magac oo ajab badan oo muuqaalkooda dad fara badan ay macnaha ku hoos jira ay moodaan inay ka tarjumahayaan ayaa lala baxaa waa nidaam marka la sameeyo oo asal ahaan reer galbeedku ay isticmaalaan ama iska leeyihiin shayga waxyaabaha lagu suuq geeyay kamid tahay in dadka khabardaarka oo aad aan wax u fiirin magacyada dagi karo aad iyo dhalanteed oo aad u qurxoon magacyadaas in shayga loo hirgeliyo maxamed ibn abdul wahhab laqabyada uu yeelay ninka waxa kamida al-imam waxa kamida al-mujaddid waxa kamida muslihul aalam oo lidalika inta waxaan hayn oo mimma kiya taqtadiya ikeenayso maslahatul isticmaari magacyo qurxoon oo isticmaarka umaladooda ama dadka daba dhilifka ah dantu ay ugu jirto in loo bixiyo si dad fara badan ay ugu soo kadsoomaan وهكذا انشئت الحركه sidaas ayaa lagu curiyay harakada al-wahabiyya mustatiratan halay tamidi isku qarinaysa bismi da'wa salafiyya magaceeda nahnu salafiyya anagu salafkii qumana dhaqankoodii iyo taariikhdoodii iyo manhajkoodii ayaan ku joognaa oo aan noolaynaynaa magacaas ay isku qarisay oo dadka cawaamta isugu asturtay wandalaqat min najd harakadaasi waxa ay ka amba qaaday duulaankeeda iyo dhaqaaqeeda najdi xageeda buuralayda xijaaz fasaddaqa fiha dhexdeeda waxa ku rumoobay حديث رسول الله صلى الله وسلم عليه إلهي رسولك حديث كيسي أي دبرك أرتين أو عد كلا أن لو هينين بها نبي يري أي بنجد نجد الحجاز أي يضلع وحا كسر لنا هي قرن الشيطان كيس كيسو ونبي عليه الصلاة والسلام حديث مشهور يمن يشام وجود دعاء دور جار دعاء وكعلي يا ضدك الصحابة هو دجان كقاركود وهي النبي كعد سين إنه حجاز إنه دعاء شام إنه دعاء نجد إنه دعاء نجدي kaasoo nabigu dhowr jeer markuu ka jimbaday oo in lagu soo celceliyay waayaha uu arkay ayuu wuxuu u bayaaniyay sababta uu uga leexday war meeshaas meel loo duceeyo ma ayahano hunaka zalazil uu yiri meeshaas ayaa islaamka fadqalala iyo gariir iyo deganaansho la'aantu ay ka imaan doontaa meeshaasana geeska sheedaan oo ka soo dhalan doona sheedaanka geeskiisu meesha ka soo dhalan doona waa halkaa arinta marka waxa dhabarka u ritay oo ku rumoobay la xaraka kale to hadda islaam sheeganaysa oo islaamka dhibaato ku ah oo asalkeedu halka uu ka soo jeedo ma jirtaba ayagaas ku rumoobay رواه حديث البخاري أيا وري وعند الترمذي اكتسب واحد منها حجاز نجد طلبنا إنسان إلا ودعيه أيدا حق أيا يخرج قرن الشيطان كجيس كيسة ومحمد ابن عبد الوهاب المفسرين أيدا أيو كسر صعدا جيس الشيطان كسر لنا هاي وحتى يكون الوهابية مدها وبعدها الديني ارتكزت هذه الدعوة على تكفير العام وحيد وارتكزت وحاي كتلا لنتي هذه تن الدعوة دعوة
على التكفير قال يسين كركدي سلدي كدغتي تكفير كاسو العامي باسن لكل من غف والبلا قال يسيو من خالف دعوتهم دعوه خلافه حتى يكون للوهابيه سي وغسناد وهابيه مدها في السنانتيدا iyo وبعدها مسافadeeda bucdigaasoo addiiniyo diinka loo nisbeeyo si ay u noqdaan dad diinta islaamka wakiilka ama ka tarjumi kara ama aqoon durugsan u leh si loogu qaato dhul balaarsi baaxad weyn ay u sameeyaan wahabiye waxay shaqo iyo saldhig iyo xarun ka dhigteen in ay yiraahdaan muslimiinta annaga wixii naga horeeyay diin islaam ma aysan haysan gaalay ahaayeen ilaa waqti dheer Abdullah warki doona hadalkiisii haba yaraatay qof tawxiidka fahamsanaa diin islaam waxay tahay fahamsanaa iimaan waxa la yiraahdaa fahamsanaa haba yaraatay aniga hortay ma jirin laga bilaabo mashaayikhdii ilaa 600 oo sano waqti laga gaaro qabla al-khayr alladhi manna Allah bihi alayhi rasuuli khayrka ilaahi aniga ugu manaystay ilaahi khayrka hadda ugu manaystay ka hor qofkii waliba sheegtay wuxuu yiri culama al-aarid waa riyaad iyo eeriyadeeda dhulka ku nool culimada qofkii kamid ah oo sheegta arinta anigu aan ogaaday khayrkan hortay inuu ogaado qofkaasi been ayuu naftiisa ku faanay dadkana waa uu khalday wax uusan ahlu ahayn ayuu isku tilmaamay sidaas ayuu tilmaamayaa maxaa Abdullah wuxuu leeyahay laqad ana nafteeda in barahay isu kishay waana uarifukum bi nafsi hada uleeyahay waana imaa doona anigu nafteeda ana idin barahayo wallahi laqad dalabtu ilma anigu waxaan dalbay cilmiga ayaan dalbay qofkii aniga ee arkana wuxuu ii qaadanahay inaan ahayn diinta islaamka macrifo iyo aqoon u leh xilligaasna ma aanan aqoonin macna la ilaha illa allah wala a'rifu macna al-islami islam waxa uu yahay macnihiisa ma aqoonin la ilaha illa allah macnaheedana ma aanan aqoonin waxa uu leeyahay ardaygan diinta islaamka barta la ilaha illa allah macnaheedana ma aanan aqoonin waana ogtii la ilaha illa allah kutubada ardayda loo akhriyo kuwa ugu yar yar loogu tagaa waa tii kitaabka safiinaha uu lahaa macna la ilaha illa allah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa allah islaamka waxa la yiraahdaa ma aanan aqoonin sidoo kale kitaabka yarka oo ardayda daraasada looga bilaabo maxaa ku taala xaqiiqatul islaam waa hada arkaanta khamsada islaamka xaqiiqadiisu waa arkaanul islaam khamsa waxa la yiraahdo in marka uu yiraahdo anigu ardayaan ahay diinta islaamka baranaya dadku culimo ilaahay yaqaaneen markaasna macnaha la ilaha illa allah ma aanan aqoonin mana aanan aqoonin islaamka arkaantiisa waxa qariib ah oo cajiib ah oo la yaab badan oo runtii qof walba uu waxyoonayo ama dareensiinaya ninkaasi inay ka guuxaysa ama uu watay diinul islaam diin aan ahayn diinul islaam diin aan ahayn inuu la yimid ama uu watay لا إله إلا الله معناه مقررها سلفا مرتي خلفا عن سلف سلاسة لو كلا دحلا يقرهيد إنه يراهدو أنيو فهمي أن أولا يهتوحيدك إذا أن كقاتي لما أركو عركاسو إيغا سو دعي waxyaabaha waxay kamid tahay culimadu ay yiraahdeen waxay u muuqataa ma laga dareemayaa inuu xogaa idmaaraha ama qarinahay waxa la yiraahdo waxay inuu ku leeyahay ayla diintan islaamku waa diin ala silki itibaaci lagu qiimeeyo oo soo qaad qof u ka soo qaaday inuu markii yiraahdo aniga cidiga horeysay waxaan haba yaraatay isan ogeynan ogaaday culimadeeduna xitaa kamaana dhaxlin ma isan ogaanin dadka kale to ahlu diinka dafa adduunka ku nool qof sheega karta anigu waxaan ogaaday lama arko kada macnaheedu wuxuu noqonayaa waa diin la'aantaas dhaqankeedu uu muuqday iyo dhadhankeedu waana waxyaabaha culimadu ay yiraahdeen waxa aad uga guuxaysay inuu nabinimo sheeganayo waxa Abdullah korba yuusan u qaadin sababtoo ah hada islaamka inuu ku duulo xoolahoodii qaniimo ku magacaabo waxa la yiraahdaa takhmiis inta la sameeyo xoolihii khumus isagu inuu yeesho arbacatu khamaasna qaniimiinta dadka asxaab bililqada la socota loo qaybiyo asxaabtiisi ansaariya muhaajiriin lagu magacaabo muwaxidiin kulli waxay leeyihiin waa alqaabtii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ciidankiisi qaaliga ah gaalada islaamka sharafteeda baray ee ku duuli jiray dhammaan wixii ay iska lahaayeen inuu gudihiisa la soo galo isku tilmaamana marxaati cad ay u tahay ninkaasi inuu aad u qarsanahay nabinimo dhaqankiisana waa ka muuqataa wahabiye markaasi maddi macnaha taagmid iyo fitsanaanteeda iyo masaafadeeda iyo baaxadeeda diineed si ay u yeelato oo dadka inta kale ay uga dhigto dad eber waxba aan garanin ayaa dacwadana waxa saldhig iyo xarun looga dhigo gaalaysiin caama likulli man qaf walba la gaalaysiyo khalafa dacwatahum khilafo waja'alu lidhalika waxayna u yeeleen takfiirka caamka majmuucatan u yeeleen waxyaabo la isu keenay oo min arrakaizi waayaha saldhigya waxyaabo xayn oo la isu keenay saldhig uga dhigeen ka takfiir kulli man wa qaf walba la gaalaysiintiisa oo yatawassalu ila allah ilaahi ugu tawassula bil anbiya anbiyada wal awliya ugu tawassula wa salihin qafkaas waa gaal la yiri kow ونحو ذلك ينتهي وحي لماذا فكفروا وحي قاليسيين وهابية أهل مصر وأركي دونا إن شاء الله نقوش كل بين أبورد مان هل حبوا بين أبورد ما أوجد كل قرى الله وركسوا قاعد دونا إن شاء الله رأي مصر أي قاليسيين رأي شام أي قاليسيين رأي عراق أي قاليسيين رأي من وقال يجرهدين
وكفروا كل من غفوا البأي قاليسين ويتعاملوا مع هذه البلاد لولكاس وقال ددك ay ku tilmaameen qof walba la tacaamula bitijaarati kula tacaamula ganacsi oo min ahli nadin dhulka nadi dadkeeda ah awil qura ama qariyooyinka al mujawirati dariska la gaal ay ku tilmaameen hadaba waad arataan anagu qofkii aan la dagaalo qofkii u jooga deegaamada dadka islaamka ay joogaan qofkii ku baaqi noqdo anagu aan ka tagno waa gaal qofkii qofan gaal u naqaano wax ka gata ama ag istaaga ama la fariista waa gaal dhaqan qadiiman hore ay u lahaayeen لقد كانت الوهابية وهابية وحيد كما يذكر مفتي السادة الشافعية بقرة الشافعية متكودي جوابها يسيد وشيغا يو كخليغا او سو غاري في مكة المكرمة مفتيغا اوغاها الشيخ السيد أحمد بن زيني دحلاني سيد وشيغا يو او كتاب كيس او كشيغا يو هي خلاصة الكلام في أمراء بلد الله الحرام كتاب مجلد عجيبة الشيخ وحو كمدها رجي جوب جوجا وهابية markay xaramanka qabsadeen runtii taariikhda soo guurinayo markii aan aragnana waxay noo muuqan jirtay wax aan macquul aan ahayn oo aad gariib u ah hadee waxa noo muuqatay muslim macnaha uu iska leeyahay qofka sheeganayo ugu yaraan waxa ay tahay inuu ilaaliyo aad iyo aad la yaab u lahayd laakiin hadda ficlan waa ka qanacno aad u barana markii aan aragnay gobolka ama wadankanaga awood iyo cudud military wahabiye intay ku yeesheen in ay fuliyeen oo ay ku dhaqaaqeen mabaadi'dooda waxay tilmaamaysay markii aan aragnay waxa noo soo baxday sheekhu waxa uu soo guuriyay hal xabo inaanu ku darin hal xabo maxaa yeelay mid walba dhigiisa mid ahaan anagu aragnay oo aan la kulano xilligan ay wadankeena ku aragnay كو وحيري لقد كانت وحيري الوهابية وهابية وحي أهيد كما سيدي يذكر مفتي سادة الشافعية وشيخها في مكة المكرمة مفتي أواها الشيخ السيد أحمد بن زيني دحلاني فتنة أي أهيد وهابية وألمت بالمسلمين المسلمين تكدكتين مصيبة وحيد المسلمين تكدكتين على ورهمي كريم حيث اختلفت ما دام أي قرطي أو أي كسبتي حيث ما اختلفت أي كسبتي الوهابية وهابية جرائم دكنيال يا أي كسبتين ذنوب ووين أو تخشعر لها أيضا درادة إلى جرير عطو لغم عطو الأبدان جرركم قفك جيركي سوء حد يكون جبته فلم يسلم كما بدباد من شرهم شرط هذا شيخ ضوء كبير وين ولا امرأة كما بدباد الناك من أهل عقيدها قباء أهل عقيدة يتهلليه ولا طفل كما بدبادين أو وليد لدلي فقد أغارت الوهابية وحي صورين على الحرمين وما أقاموا حرمة ما أيسن بدبادين وما أوجين حرمة لتلك البقاع قوها إلهي شرفتي أويا لما ما يسروا أبين وما يساجين فنهبوا وحي بوابين أموال حولها وسبوا وحي قفاشين النساء ناقيه مركا قرحونا تكون فالحنا أيها اللي سكد قورعاه أهل العقيدة كسو جيدان لينا كو قرحونا واكا وحي كو قرحوين إلا هيستو والله وتهدم واسداس وقتلوا وحي بابيين العلماء ضدك أهل العلم والعامة عامدي ضدك أهل العلم احترامي سنوي بابيين وسرقوا وحي حدين محتويات الحجرة النبوية نبي عليه الصلاة والسلام أمواشا موقوفة له وهي هي قبر جيسا مسجد كيسا لو تلقى وقال كان لدينا ويبوبين وفي مكة والمدينة مدينة مكة هذين كل ذلك وحاء تحت ستار محاربة البدع أستر يداها بدعة للدقالد لما أنت لو حصل الوقوف الله وحال بدعوك الله دقالمينا الشركيات كان بابينا لي بدعة وحوليها للدقالد أستر كذا يا وحصل هوست هذين وشركي شركة للدقالد هوست هذين فإنا لله أنه إله وأن له وإنا إليه راجعون إليه وأن الله وإنه مصيبة وين وحلقة شيء وكلا لما يغان وقد وقف السيد أحمد بن زين الدحلاني وحو قبجوقها على شيء سيد الشيسو من جرائمهم تعديد وذا كمذا فقال وحوري ولما دخلوا الضائف مركي ضائف صاقلان قتلوا الناس ضدك يدلين قتلا عاما دل باهسا واستوعبوا الكبيرة وحي عممان كوين يو صغيرة مدير يو المأمورة متك مدحدة اللوية والأميرة كي مدحدها والشريفة متك قيمة قلكها ولا وضيعة متك الليتي وصاروا وحي هذين وهابية يذبحون إلى الجورع هيان على صدر الأم هيدا بق إلى الضفل عرورك أنت بق أساران أي برين هيان قفك أهل عقيدة ودلي أما كسو جيدون وخوارج أسل كودي وحي سميان عبد الله بن الخبيب يكون سميان واتي سلانتي سايو أورله على شيء أنت كدي العين عرورك أنا كسو ريدا أيضا جورعين أسجين الدليئون لغن كان نوعاسة ولغن قديما أي لهايان وحي سميان عرورك يركا هيدا بق أنت أساران كبريان وصاروا وحي هذين يسعدون أن يكرهيان إلى البيوت يقولها دبغيدا يخرجون حال إلى صباحيان من توارى فيها ضدك كعر سيقري وقدوا منها فيقتلونهم ويدلهين فوجدوا جماعة وهابية وحي لكل من جماعة ويتدارسون القرآن قرآن كيسم ميرينها كسبعينها فقتلوهم ويدلين عن آخرهم هذا كفر محاكا داعي حلي غانو أريد براويه تصاصوا كلا توسبعينها قرآن كسبعينها لك تديق إلا الله دراهم ويدلين إلاك وقدم بيئي كسو جيستان وخرجوا إلى الحوانيت دكامة أي أصابحين والمساجد هي مساجد وقتلوا من فيها ذلك كسرنا وإلايين
ويقتلون رجلا إنك يدلها في المسجد مساجد قديسة وهو راكع أصغر ركوعا أو ساجد أو مسجودا إنا لله وإنا إليه راجعون حتى أفنوا إلى أي إسر قيون يبابيان يحصوغان هؤلاء المخلوقات مخلوقاتك فويل لهم وهذه النار أصبنا وهابية من جبار سماواتك إله إسكال وخصبة هلاك أي حق سأصبنا وهو قيال إله النار ودياري حتى قال إلى أويري فنهبوا وحبوا بين النقود نقديدي والعروض يا بديعوينكي والأساس يا أساسيدي والفراشة يا بوبين لعقيه كلا دونا ولا استعمال جري قوله يا بوبين ديرة عادية ويتهافتون ويدادنا هين على ذلك أمواشا حولها الدشرة أي كل دادنا هين تهافت الفراشي لداقة أما بالا ليدو سودا يقضى تضمك يقضى تبينك قدر كأن فصارت الأموال حولها وحي هذين في مخيمهم تندوين كذا دحدودا حوله وحي كو آذين كأمثال الجبال سيد برو كله guri walba iyo geed walba wixii laga heli kara laga soo urursado markaas meel la isoo keenay ilaa kutubta islaamka mooyo dadka ahlu sunnada guriyooda iyo culimada intay galeen ay ka soo baxsadeen fa innahum wuxuu leeyahay iyaguna sharuha kutubtii way firdhiyeen fi tilka albidaahi banaanada iyo fil anziqati wadooyinka iyo wala suuqa suuqyooyinka ku daadiyeen taasifu biha xaal ay la babanayso ku dhabanayso arriyaahu dabayluhu bil kasina kutaka babinayaan baalashiisi وكان فيها كتبتها waxa ku sugnaa isa u daadiyeen min al masahifi مصحفيada quraanka xaalay kamid yihiin iyo war rubaaciyada kutubta ulufun kumanaan oo muallafatun la isu kana kumanaan kutuba quraan oo jaamaciya iyo kumanaan rubaaciyada kutubta quraan diinta islaamka ah ayaa kutubta kamid aha ومن نسخ البخاري نسخooyinkiisa oo muslim nusqooyinkiisa oo baqiyati kutub الحديث iyo xadiidka kutubtiisa baqiyadooda wal fiqhi kutubtiisa oo nahwa kutubtiisa oo غير ذلك iyo kutubta intaan ahayn oo min baqiyati ulumta kalato شيء أي هذا شيء قاسو كثير بدن وح بدن أو كتب تاسا يا هل كادات سنة وما كثر كتب تاسي أياما مع أي طريقة في السنة يكون جيد وهو يجي يا مرة مكتب كذا وها طريقة يا وضده يضونها حالي كل استاج هيان بأرجلهم عقود كل استاج هيان لا يستطيع أحد غفنا حاله سنة ودين أن يرفع منها إن أكر قاضي كتبتها حاله كميدها ورقة هل ورقة ممكن ألقى غادي كريم انتهى ودما ما نقله وحسو غورني من كلام الشيخ الدحلاني هذا الكي امام الشيخ الدحلاني اهانا الذي يقول لي كلام كاسو يظهر موجنها فضاعه ما حمانتي سما غاسو جنت ايديها اولئك وان غعمهود اي كسبدين الرعايه وحنا غرتدا ابر كوان waxa ay eedaha ay sameeyeen hadda maxaa ka dhacay dhulalka dadka ahlu aqeedada iyo diinta islaamka ragii soo samata bixiyay oo wadankan laga alfa waayay oo tarbiyada islaamiyada iyo sulukiyaadka Soomaaliya ahalka ugu ahaa xarumahooda oo ay gacanta ku dhigan oo ay galeen maxay ku sameeyeen wax alla wixii dhaqaale adduun ah oo yaalay way qaateen oo suuragal ay u noqotay wax alla wixii kutub ragga ay lahaayeen ragga gobjooga sidaas macruufa waa ay firdhiyeen way daadiyeen kutubtii quraanka kutubtii cilmiga kale culimada iska lahaayeen markaas ruux kor u qaadi kara ilaa meesha ka tagaan aan la helaynin in al-istimar kullama a'da lil wahabiyati wahabiyya markuu siiyay istimarku هذا البعد فوانت البعد قاسو الدينيه مسافه ادي ادو بحد وين لا دينيد markuu siyo dad diineed caalamka inuu uga dhigo isku dayay وهي لها una u diyaariyay min asilaahi hubka iyo wala mawalihan hantida xaal uu kamid yahay libasti saydarati qabsiga si ay u balaariyaan ala aljazirati jazirada korkeeda ay ugu balaariyaan jaziradaas al arabiyati inma arada isticmaalku markuu sidaas yeelay maxaba islaamka qabina wuxuu doonay an yajcalu ina yeelaan mustacmiriintu للمسلمين إن أغيّلان مرجعا مكان لابد مرجعا سو دينيا مرجعا سو بديلا عن الأزهر الشريف أزهر كي شرفت لها بدل كأه الذي أزهر كاسو كان وقتها حل جيدي أهيد مزهرا من أبحية وحصو صارة ويخرج العلماء علماء صارة ويعمل كالشقي على نشر عقيدة أهل السنة والجماعة وهابية مركان من كاسي أي أنت أسورة قليين جزيرة العرب سيقع أنت أقول لقان وحيقول تلقى لين جزيرة العرب إسلام كهذا دران كقبائنا اللوغي يعني قلب الإسلام أي تهي waxay ugu talagaleen tuugtaas intay u fariisiyaan xarunta islaamka ayagu inay noqdaan dadka diinta islaamka ka tarjuma ee loo soo laabto way hela wareysto haddana waa daraasanta waad ka warqabtaa marar badan masaa'il sharciyo oo culus in dadka lagu handado ama sanka loo geliyo la yiraahdo xaramka laga taagan yahay ama Sacuudiga laga soomay war Sacuudi hadda xaramku waa sharaf waa leeyahay waa dhulka qiimaha badnaa laakiin waxa muhiim ah inaad daraasanaato xaramka soomay masawaadad waxa soomay meesha jooga waa dad meesha jooga dadkii lagu talagalay dadka islaamka in lagu duuflaaliyo diintooda ay ka dhibaateeyaan waxa marka loo diyaariyo dhulka loogu dooro waxay tahay in xurmada dadka islaamka dhulka ay u qabaan in looga faa'iideysto tuug halkaas laga soo qodqotomiyo ay marka
diinta islaamka codkeeda ay ku hadlaan meelihii diinta islaamka ay ka noolaato dhanna ayagu ay duugaan oo iyaga xaggooda loo wareego oo markaa bedel in laga dhigo xaramkii dadka jooga in bedel looga dhigo al-Azhar al-Sharif ee shanigiisu uu ahaa ubax inuu soo saaro waqti walba iyo sanooyin walba dad qaali ah oo diinta islaamka xamalatu diin inuu soo saaro aqeedada islaamka si run ah u fahamsan una difaacayo meeshaas in inta laga wareego xarameynka la yiraahdo codkooduna markaa uu baxo islaamku xaqiiqadii runtaada ay kaga mashquulaan tuugta la soo diyaariyay taasoo ugu talagalay wax walbana ugu horay وهكذا فإن الوهابية التي لبست لباس سلفي ودعت الحس على التوحيد والعقيدة وإحياء ما كان عليه السلف الصالح وجد الله شريانا هكذا سلاس وكلاته والأمر هكذا أريك وسلاس لفتيسة فإن الوهابية التي وهابية داسو لبست مرتين لباس سلفي دواك لهجد دي استعمالها يدوب يلبس كل سويلها يقررك مرة دي سنة هاي حبنا أركي عمد وله سنة دي كم وقت قفك سنة دي ده سنة محي وقشا قف واجيك كتجيه واجبكي ku galgashay dadka islaamka dhacayo dilaya garow deystay gar orgiba waleeyahay xamana kuma fadhiyo hadii uusan helin wuxuu ku qorxoona lahaa aqeedo fayow ah labiski salaf ayay u labisatay wadacad waxayna sheegatay al-hirs dadaal ala tawxiid lagu dadaalay oo aqeedati وإحياء ما لنا ولنتي سما وكان عليه دشيسا السلف الصالح ay ku dul sugnaayeen وجدت وحيها شيء لها وهابيه وحيها شيء لها لنفسها نفسdeeda شريانا هالبول ay u heshay ومباشرا توس ugu xiran ila jasadil ummati umada muhammadiyada jirkeeda hal bawla toos ugu xiran ayay gacanta ku dhigtay bal ila qalbiha wadnaheeda hal bawla ku xiran ayay bahashay alladii qalbigaas oo yuqadi baqiyat aljasadi jirka intiisa kala waraabinaya wadnihi islaamka fursad u hesho gacanta ku dhigtay oo inta kale jirka waraabinaya wakaani wuxuu leeyahay sheekhu waa anigo waayaha musawwirun bil wahabiyati waaba anigo wahabiya sawirahaya خلايا كسورها بروين أو سرطانية كان كرا لون نسبي وهذه حن كسور كرا بروين كان كرا إن يهين ودخلت قشيء إلى القلب ودنها جارتي وقبضتي فأخذت مركا قبضتي أنسجته ودنها حباب يجهر ديسا وفصارت أهاتي وهي خلايا داسي كأنها جزء قبل أو كلاته إن تايو منه ودنها كاملة وهذه حن كتل ما كرا بركان كرا وحلك الله إلا جرمه يه oo gaartay qofka noloshiisa kama dambaysi meel halis ah wadanaha gaartay oo ku fiday oo xoogkiisa gashay waxaad moodaa wahabiya sidaas inaan ku sawir karo ilaa ay noqotay cad wadnihii kamid ah inna mithla hada alwaram wuxuu leeyahay bararkan oo kale wadaay iyo cudurkan oo kale yaxtaaj wuxuu u baahan yahay ilaa man qof intii ka ayuu u baahan yahay yuxsinu dibba dhakhtarnimada iyo dawaha yaqaan cilada xaddigaas oo kale gaartay qofku inay ka badbaado laga lana tacaalo waxay u baahan tahay khibrad iyo takhassus dheeri ah ومن فضل الله تعالى إلهي فضل يسا يكمد علينا مسلمين هدانا دوشان أو كتفضلي وحا فضل إلهي وين كمدا أنا كشف لنا أنا إنه نوده فري أطباء يدخاتين علوس أو دينيت إنه نسيء عذراس نقسم تبحيا نقول براروجي إلهي إنه مركان نوفيدي ضلال هؤلاء كوان باديدو اللي آمي اللي تدغ مدى على يد أئمة إمام يالق عنته إلهي إنه نوجد دافران أو كشفي أئمة سواء علام البنديرة أما براء وينك يا مقالك ومن هؤلاء الأئمة إمام يالكاس هوش النوع عاصي كشفيد دا سميون منك فضيحة دا قاضي ونبري ونموجي وحكم إذا محدث الدنيا محدث كذا الشيخ الحافظ الشيخ حافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يوسف الهرري إمام كاوين وإنت بدن جهد يا ودي سجلي لا دجال كان لمن كان لا دجال ما كتبت سئم بدن أو كم إذا آد مبادئ أفكار تدوس وبندق وجه جحيم الهرري الحبشي رحمه الله تعالى صاحب المقالات السنية في الرد على ضلالات ابن تيمية كتب فرا بدن اسكالي سراد المسلمين كتب طلبتك وهو من أهل هذا العصر وحكم ديها كتاب حلق القروان ولا شيخ ضمن ولا حلق عندك سأيكم ديها شيخه فلله إلهي بأصولاتي المنة قال لي والفضل لا إن سيادتك سوكله وهم وهابية وحي يقول قودن تهي وحي يقول جارنته وصل أنت دك أهل دينك وحكى لما هنا وأيجا دتك أي كقد بلايين أما كعل فلايين عامين إسكوتان dadka hadiya jeer tooska la daba taagan oo ifinayo umada u daafuraya oo xaalay xaqaa'iqooda barayo u sheegaya waa dadkaas inay dadkaas ka takhalusaan waxay uga dadaali og yihiin ama ay ka jecel yihiin lama arko laakiin hadee waxa la yiraahdo u suuroobahay ma aha qofku xilligiisa iyo umrigiisa cidna kama hormari karto cidna kama dadajin karto ilaahay fadligiisa culimadana xil diineed ay u arkaan dadka islaamka khatar walba ku soo fool leh
إن أي براروجيان أيوة كديانها يا نبي عليه الصلاة والسلام إن كسرهمتي وحليا بدن أي تهددك عملها أنت بدن ما هسنان اللي أبتلي لما كان بدعاه هو أن من أواد قوم من بهداس يقالنا ولي بعام سيد دجنتها يمالها لا يقلل لهجد يا لغة الله أديك سؤال خبراء وقع عمنا وبدأ ضيع على يرهده شكسو هذه هذا اللغة ريبه بريء هذا كيدا أيوة مركا قل جوجه أما أنا خراع الدون هكو حنبارو أما أقول ضريء جهلي وهكو حنباره وواحد لغة على إيهيو وإيهي إلهي وأماني يمنا إسكاله إنه نوية لرجنا وده فريق من نوع عدي حقائق الرجاس الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى